Ti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariirada qodobada aad wararkeena ku daawan doontaanna waxaa ka mid a xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe oo qarka u saaran inay baaqato iyo dowladda Soomaaliya oo qorshe cusub abaabulayso magaalo duqi iyo gudoomiyihii ka talinaya xilka laga xayuubiyey xiisad ka dhalatay arrintaas iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan idin haynaa madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa ka soconaya Jubbaland dulmi wuu bilowdaa ee ma joogsado warbixin ayaan idinkaga haynaa iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo ku dhawaaqayo xisbi ka dhan ah filla Soomaaliya waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 7 Oktoobar sanada 2019 aan ku bilowno Jubbaland ayaa war cusub ka soo saartay caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe maamulka Jubbaland ayaa sheegay in caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland oo dhici doona marka ay soo dhameystirmaan wafuudda ka qayb galaysa caleemasaarkiisa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wariyaasha u sheegay in caleemasaarka uu qabsoomi doono marka ay dhammaan wafuudda soo gaaraan Kismaayo caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland ayaa markii labaad dib u dhacay sababo la xiriira xayiraadda ay dowladda federaalka Soomaaliya ay saartay dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa ka digay cadaadiska dowladda federaalka Soomaaliya ku hayso Jubbaland ay ka dhalan karto kacdoon bulsho waxaana mar kale uu ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in ay xorriyadiisa dib u soo celiso wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo haatan Muqdisho lagu maxkamadeynayo waa hagaag qaybihii hore ee wararka warbaahinta jariirada ayaa daawanaysaan saaxiibayaal gudoomiyihii iyo duqii maamulka degmada Buulaburde ayaa xilka laga qaaday wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa xilkii looga qaaday gudoomiyihii degmada Buulaburde iyo duqii degmadaas gudoomiyihii degmada Buulaburde Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Dhuurow iyo duqii degmadaas Maxamed Fiidow Cawaale ayaa xilalkii ay hayeen laga qaaday iyadoo gudoomiye ku meel gaar ah loogu magacaabay gudoomiye ku xigeenkii maaliyadda Liibaan Cabdi ee degmada Buulaburde wareegtada xilka laga qaaday gudoomiyihii iyo duqii magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa lagu sheegay in ay salka ku hayso isqabqabsi dhinaca maamulka ah balse lama cadayn isqabqabsigaas nooca uu yahay hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in xilka qaadista ay salka ku hayso diidmo ay madaxda maamulka Buulaburde ay diideen in la dhiso golaha deegaanka degmadaas iyagoo sheegay in marka hore la dhiso golaha deegaanka degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilka qaadista maamulka degmada Buulaburde ayaa timid maalmo kadib markii maamulka Hirshabelle uu xilkii ka qaaday gudoomiyihii degmada Beledweyne wararka warbaahinta jariirada ayaa saaxiibayaal weli daawanaysaan madaxweynihii hore Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa lagu sameynayo maamulka Jubbaland madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka dowladda iyo dowlad goboleedka Jubbaland iyo xayiraadii dhawaan la saaray maamulkaas waxa uu sheegay Cosoble in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa mar walba raalli isaga ah isu xog sheegashada isla markaasna ay yihiin kuwa isku fiirsada kadibna ay dhacdo in mid u qayliyaan qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in dhammaan maamul goboleedyada ka jira dalka ay isku fiirsanayaan dhibaatooyinka midka kale loo geysanayo isagoona sheegay inuu ku faraxsan yahay in ay maamulada dhadhamiyaan dhibaatooyinka lagu hayo Soomaaliya waa wadan ay dadkiisu raalli isaga yihiin isu xog sheegashada iyo dulminta sababtoo ah kama dhiidhinayaan qaladaadka ee way isku eegtaan markaasuu midba maalin cabaadaya maxso kor ayay ku tahay Jubbaland waan ku faraxsanahay tan lagu sameynayo Koonfur Galbeed ha iska daba wareegto Galmudug Hirshabelle ha baqtiso Puntland ha faqoonaato airportka ha la iska celiyo guryaha ha la isugu daato doorashadana dib ha loo dhigo intaba waan ku faraxsanahay ha la wada dhameeyo
xaraarka uu dulmigu leeyahay ha dhadhamiyaan. Xaraarka dulmigu waxa uu isu beddelaa macaan markaad aragto kii shalay kugu qoslayay oo maanta cabaadaya. Walba dulmi ka sheeganaya waxaan leeyahay welcome to the club. Albaabadu way furan yihiin. Dulmigu wuu bilowdaa ee ma joogsado, ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka. Waa hagaag saaxiibayaal, qaybihii dambe ee wararka warbaahinta jariiradda ayaa haatan ku sii siqayna. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa sheegay in uu ku dhawaaqayo xisbi mucaarad ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa sheegay in dhowaan uu magaalada Muqdisho kaga dhawaaqi doono xisbi cusub oo weliba mucaarad ah. Isaga oo maanta khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu soo dhaweynayay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayuu sheegay in uu hogaamin doono xisbigaas uu noqon doono mid mucaarad ah, kaas oo loogu dhawaaqi doono maalinta Arbacada ee toddobaadkan. Waxa uu sheegay in xisbiyada siyaasadda dalka ay yihiin kuwa sharciga u ogol yahay, isla markaana baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen, sidoo kalena uu digreeto ku ansixiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalka ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa imaanaya xilli lagu tirinayay siyaasiyiinta aadka ugu dhow madaxtooyada Soomaaliya. Guud ahaan saaxiibayaal daawadayaal, waxaa halkaas inooga dhan warkii aad ka daawanaysa warbaahinta jariiradda media. Haddii aad nagu cusub tahay saaxiib, fadlan subscribe saar channelkeena si aad u hesho mar walba xogihii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya.